السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaa maanta shir jiraad ka qabtay magaalada Manchester gudoomiyaha gudida anshaxa ee UK ee xisbiga wadani ana xubin sare oo kamid ah gudida fulinta iyo gudida fulinta Farxaan Maxamed Fagax waxaana ka soo dhaw Farxaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مختار باش وسلامية هذيك لما بحضر تي في جولد الشركة يجن شرايد عاو وحدانية هاي سيدا لسعني وبريها ضمن لما شاقنا إن يهين حسبي كلمية وديجن مقالة مانشستر أيها واحد يسمين حفلة أي كجبين أبورانيين حبنا أي هذا واحد كسر ديجر روكتين حسبي وطني مركع عاو وحن ربينا نعطيه سيدي هربا قدومي كحجين كحسبي كلمية عبد السمد وعدي إن أنا متشرين حبنا وطني كسر ديجر روكتي ووسود ديجر روكتي حسبي كلمية حبنا هسي ويكمل هانشرين حسبي وطني مدة كهر بلس مدة سنة كهرة أي حبنا هاس نوجود بيسي أنا كدب مركي حسب وحولي حره صاديو يدستور قفكو for example هادو أفر بلود يسكو حاجة وبحين وايو لعقت اللقاء كحسبية حبنا مدي سكوايا حبنا هاس لبا كميدا نوحي حبنا مدي كوايين مدة سنة كهرة لعقت اللقاء كو أفر بلود يكون إنك بدنا نيبحين تانا إيه أوتوماتيكلي بابود حركة حسبه وديديا إنه قفكاسي كسي مد هذا حسبية iyo xubinta saddexaad oo arrimo khalkhal gelinaya ama isku horkeenaya taageerayaasha iyo hawlwadanada xisbiga wadani hawlo ku taxalluqa oo ku kacay arintaas darteed isaga anshax marin baanu ku sameynay oo anaga xisbiga ka erinay marka waa ayaan daro in dad xil aanay u hayn xisbi ay ku qarabtaan laakiin bariyahan dambe waxaa jira dad iskaga qaraabta hawlahaas waxaan u bixiyaan oo kulay xil nabayaal oo dad nabaya ama been ka sheegaya xil aan xisbi wahayn wana ku badan yihiin haday tahay gudihii iyo haday tahay qurbahaba waxaan uga digayaa xubnaha kulmiye jooga magaalada Manchester inay ka digtoonaadaan kulay waxaan u maleynayaa xisbiyada qaranku waa xisbiyadeeni كل فكر كومبانيا لو كلا دوونان كرا لكن كل واحد نود شيء ناس كتيره ملبن نود صعنا إنه نقارن كنا جالسينه اعتراف إنه نقارن كنا جالسينه إنه عالم كم من نقطة أي لمانتين نود صعنا بس واحد نكون كلا دوونيا نهايون سيدي لو جار لها الكاس ومتبع ليه هاي for example متبع دين عليه ساسا هابون sidana haboon marka laakiin in wax dagaal inagama dhaxeeyo kulmiye iyo wadani iyo cidba waa xisbiye qaran waa asset qaran ku leeyahay aan cidina si gaar ah ugu tagrifali karin marka waxaan uga digayaa xubnahaas ku kacay khaladkaas inay ka digtoonaadaan hadda wixii ka dambeeya waxa jira xubnahan imika yiri xilalkaas aanu haynay واحد شو جاب قداميه مانشستر ويسمونه هذا للدونا حسب وطني حكايه يا شو جا وطن كي حول الشقاوة مقنع ويمكن يسمونه هرجيسك صاحد لي وننكلا لوان كلا وحلفي سشاكتي مركها أرنتاس وحلقة يقصدوه وحلقة حمادوه ددوا وينين يكوكعان بين انتاس لاج مركها الحلنا بياشا وحن نسوي شيء دينيا inay ka digtoonaadaan inaanay dib ugu qaraaban xilal aanay ka hayn xisbi qaran arintaas waxa kale oo markaan inta kaga tago arinta xilnabayaasha waxaan rabaa inaan mid ka yiraahdo anigu ka faa'iideysanayo fursadan inaan abaaraha wadankii ka jira in ilaahay ka dulqaado gacan bini'aadan waxa ma gaarsiin karto ummadda tabaalaysan ilaahay waxaan uga baryayaa in ilaahay raxmaadkiisa u shubo deeqdiisa gaarsiiyo bari ilaa galbeed koonfur ilaa waqooyi meel kasta oo wadankeena ah jiha kasta iyo deegaan kastaba arinta kale aan rabo inaan ka hadlo
waxay tahay arrintan waddankeenii 25 sano ayaynu haysanay xornimada qabyaalad ayaa waddankeenii aad iyo aad ugu sii badanaysa maalinba maalinta ka dambaysa anigu muddo 30 sano waxaan tegay bishii October waan ka qayb galiyay shirkii golaha dhexe xisbiga wadani runtii diyaaraddu markay la dul maraysay magaalada Hargeysa waxaan aad uga xumaaday nabad guurka baan ee ka jira deegaanka laakiin waxa ka sii darnaaday ama ayaan darro noqotay wax fajicisa markii aan dhulka yimid oo aan la kulmay nabad guur ku dhacay maskaxdii dadka daar waa la dhisi karaa infrastructure-ka waddanka waa la dhisi karaa laakiin maskaxda qofka bini'aadamka sida loo dhisaa waxay qaadataa time waddanku maskaxdii dadka waa la dilay waxaana fiicnayd 25 sano waxay ahayd in dadka la dhiso in la sameeyo xaalad saamaxda in dadku ku noolaadaan waddankooda ku faraxsanaadaan aaminaan ka shaqaystaan waxaa kaloo aan aada u soo jeedin lahaa isbedelada aynu doonayno waa isbedelo long term iyo qaar short term kuwa short termka aan anigu usoo jeedin lahaa hataa musharaxayaga madaxweyne iyo hoggaanka xisbigaba waxa weeye haddii hoggaanka xisbigu ku guuleysto talada dalka insha Allah bismillahi kariim uu ku guuleysan doonaa in la joojiyo waxyaabaha ay ka mid ka tahay in wasiiradu faaruqiyaan xafiisyada in madaxweynaha 200 qof iyo 200 gaari kolba dhinac ula yaacaan wadooyin loo xiro madaxweynuhu markuu safar ugu baxayo shaqo in isaga iyo staafkiisu ay ka baxaan madaxtooyada haddii airportka tagayaan haddii dhulka marayaanba balse la joojiyo wasiiradan xafiisyadoodii soo faaruqinaya waa isbedelada short termka ee dadku indhahooda arki karaan kuna farxi karaan talabaad waxaan ku darayaa in ciidamada qaranka ayaa waxaan u jeedinayaa fariin u dirayaa ciidamada qaranku xukuumad kasta oo timaada waa ciidamadoodii marka ciidamada qaranku inay xisbi dhinac saaraan ama cid gaara ayaan iyagana fariintaas ka codsanayaa oo ay ciidamadu ogaadaan inay dawlad kasta oo timaada ay ciidanka u yihiin ciidanka magaca qaranka waxay wataan waxay u dhaxeeyaan qaranka oo dhan dadka shaqaaleyna waa kadalik inay iyaguna u dhaxeeyaan xisbiyada sababta dawlad kasta oo timaada ama xukuumad kasta oo timaada shaqaalihiisu si ahaanay wax isbedelayaan waxa weeye xafiisyada siyaasadda waxa kale oo jirta mid ma waxaan rabaa inaan ka idhaahdo TV-ga qaranka wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta Somaliland mudane Cadaani markii uu wasaaradda lagu wareejiyay shir jaraa'idkiisii ugu horreeyay uu qabtay wuxuu ku ballan qaaday in TV-ga qaranka loo sinaan doono iyo dhammaan guud ahaan warbaahinta qaranka balse ballantiisii inaanu ka soo bixin oo TV-ga qaranku yahay TV u adeega xisbi gaar ah marka taa haddii laga waantoobi waayana waxaanu ballan qaadaynaa inuu TV wadani u gaara aanu keensan doonaa anaguna insha Allah bismillahi kariim waxa wanaagsan in dadku kala saaraan waxa qaranku leeyahay iyo waxa xisbi gaar u leeyahay xisbi kasta wuxuu gaar u leeyahay waa wixiisa laakiin waxa hantida guud ee qaranka in xisbi si gaar ah ugu takrifalo waa laga fiican yahay shirkayga jiraayid caawa aad u mahadsantihiin bahda TV guuleed aad iyo aad buu mahadsan yahay kaasina waxaa gudoomiyaha guddida anshaxa ee UK ana xubin golaha dhexe ka tirsan xisbiga wadani farxaan maxamed fagax waa anigoo mukhtaar baashi maxamuuda guuleed TV waxaad ka daawan doontaan dacalada adduunka meel kasta oo aad joogtaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh